qof walbo doonaya inuu zakaatul fitr bixiyo afartan shay inuu ogaado waa muhiim. Number 1 waa inuu ogaado horta fadliga ku sugan zakada bixinteeda iyo faa'iidada laga helayo. qodobka labaad waa inuu ogaado waqtiga ay waajibayso zakaatul fitriga. midka saddexaad yay ku waajibaysaa maxaana la bixinaya oo marka wax la bixinayo maxay yihiin. sidaas oo kale dadka la siinayo dadka ay ku baxda zakada intaas oo shay qofka inuu ogaado waa muhiim. fadliga nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa noo tilmaamay oo xadiis Abdullah ibn Abbas uu warinayo ayaa wuxuu ahaa farada rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam zakaatul fitri duhratan lis-saa'imi min al-laghwi war-rafath wa du'matan lil-masaakiin. macnaha nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa waajib yeelay zakaatul fitriga ayadoo markaa qofkii soomanaay ka daahirinaysa waxyaabihii laqwiga ahay intii ramadaanku uu socday laqwiga hadalka aan habboonayn qofku iska dhahayo oo faa'iidada aan lahayn iyo rafadka hadalka xun waxyaabihii ka dhacay ay markaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala uga daahirinaya way zakaatul fitriga. ilaahayna quraanka uu ku sheegay khudh min amwaalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha. nabiga kaleey salaatu wasalaam lagu amray marka taas waa fadliga ku soo arooray. axaadiis kalena way jiraan laakiin midkaas ku gaabsanaynaa. waqtiga la bixinayo ama waqtiga ay waajibayso zakadan waa maalinta ugu dambaysa ramadaanka markii qorraxda dhacdo habeenkii ciidda kow ay tahay habeenkaas oo dhan ilaa maalintii subaxii ilaa salaada ciidda ka hor ayaa la doonayaa way qofka inuu markaa bixiyo. walowba ramadaanka oo dhan qofka loo ogol yahay inuu bixiyo laakiin waqtiga ugu fiican waa salaada ciidda ka hor ayaa la doonayaa qofka inuu zakada iska bixiyo. dadka ay ku waajibayso marka dadka ay ku waajibayso waa qof walba oo guriga joogo haddana awooda macnaha inuu bixiyo zakadii. macnaha awooda waxa laga wadaa qof walbo heli kara maalintaas ciidda iyo habeenkeeda wixii uu cuni lahaa way ku waajibaysaa asagana way ku waajibaysaa in allaale intii uu markaa waxa weeye nafaqada uu siin jirayna inuu ka bixiyo ayaa ku waajibaysa way oo markaa caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo waalidkiisa iyo dadkaas oo dhan inuu ka bixiyo marka in allaale intii uu awood ayaa la doonayaa way. waxa la bixinaya marka waxa la bixinayo ma ahan lacag ma ahan sida dadka in badan qaar dad ay sheegaan waa qalad. waxa la bixinayo waa cunto. nabiga kaleey salaatu wasalaam uu noo tilmaamay saacan min tamrin wa saacan min shacirin u dhahay macnaha waxa weeye timir waa lagu bixin karaa iyo shaciirka laakiin mar walba waxaa la fiirinayaa dadka iyo meesha markaa ku nooshaa wax ay cunaan oo qaalibka ay u yihiin ayaa la doonayaa qofka inuu bixiyo. haddii dadka ay magaalada ku nool bariis ay inta badan cunaan bariiska ayaa siinaysaa wey waa shay uun markaa la kaydaysan karo ayaa muhiima. qadarka marka shaygaas culimmadu waxay ku tilmaamaan markii la miisaamay nabiga kaleey salaatu wasalaam saacan min tamrin oo saacan min shacirin oo laakiin markii miisaan laga dhigo waxay noqonaysaa 3 kiilo ayay noqonaysaa wey calaa shakhsi in laga bixinayo ayay noqonaysaa. haddaba yaa la siinayaa marka qof walba oo markaa waxa weeye mutaystay oo faqiirka iyo maskiinka ah. marka insha Allah ta'ala waa masaa'il muhiima oo qofka laga doonayo inuu ogaado si marka ay u noqoto zakadiisi zaka saxiix ah oo sharciga waafaqsan. waa mahadsantii.